xilligan waxaan kala soo hadlayaa hotel Decal oo shir markaasi ugu soconaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qayb ka ah iyo madaxda maamul goboleedyada shirkan ayaa waxa uu daba socdaa shirkii 25 bishan waa bishii Febraayo naga soo dhamaatay halkan ay ku yeesheen ra'iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta hoggaankoodii sare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada shirkan dhameystirkiisa ayaa iminka madaxdu ay ka shirayaan waxa intaasi barbar socday iyadoo warbaahinta aan loo ogoleyn in ay gudaha u galaan marka laga reebo dhowr daqiiqo loo ogolaaday in ay gudaha u galaan misna muuqaal yar oo kooban ay soo duubtaan laakiin igala xoogaal oo aan ka heleno isla shirkaasi waxa ay sheegayaan in qodobada maanta lagu hadlayo oo waliba xilligan soo gaaray shirko gelinkii dambe ee maanta bilowday xilligan soo gaaray waxa kamid ah in laga arinsanayo sidii laba guddiyo loo sameeyay lahaa iyo sidoo kale in midowga musharaxiinta oo iyagu dhawaan ku dhawaaqay in ay qabsadaan banaanbaxaasi ayaa xilligan qayb ka mid ah wada hadalladu ayuu qayb ka yahay banaanbax sida ay inoo sheegeen warar aan ku kalsoonaan karno aan ka helayn gudaha hoolka uu shirka ka soconayo qodobadaas ayaa qayb ka in ay fasax u helaan ama ogolaansho ay u helaan in banaanbaxoodu ay si nabad leh ku qabsadaan iyo sidoo kale in gudiyadaasi la meel mariyo ra'iisul wasaaraha uu jooga waxa kale oo goobta ku sugan oo qayb ka ah shirka madaxweynayaashii dalka soo maray way qayb ka yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed kulanku uu soconaya goordhoon waxa la filayaa in warbaahinta ay ka siiyaan qodobadii ama shirka waxyaabihii ka soo baxay in warbaahinta goordhow ay la hadlaan madaxda goobta ku shireyso SBC ayaana natiijadaas shirka ama qodobada ka soo baxo daawadayaal toos ugu daawan doontaan anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir